السلام عليكم asxaabta maalin wanaagsan ku soo dhawaada ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa warbixinada ugu dambeeyay Kamal Dariga ee maalinka waxa qayb ka noqonaya arrimaha ku aadan Madrid iyo guushii xalay waxa laga leeyahay baan soo qaadan doonaa iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa arrimaha ku aadan Liverpool oo dacwad ka ah Premier League iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa Premier League iyo Manchester City waxyaabaha laga leeyahay iyo Arsenal waxaan soo kale eegi doonaa akhbaaraadka ku aadan Manchester United oo ku jirta toddobaad ay doonayaan madaxdaashka inay madax ka jiraan la kabtanku aad buu u dhiiqaystay ninkii madaxdaashka ahaa iyo kuwa kale saaxiibayaal نوع سبسكرايب كنا صار كوي جانل سؤال كروجو جري شيرتي لاكت مسكدر كان صاحب كل عيار وجعل بالبرامج كيلو قرسينا ذيق ماموس شركة هرمود وحرموين أذيق كوجارة أو ككوبان إنترنت كلية كهذا الكلية أما إنترنت يك وهذا الوذجرة نفط هذا كم ماموس حرموين كأذيق ماموس أو كجشبه هذا حديك لببقول طبعا يلبو أفرجيس وإسلام تغار كيبان يجي دونا حويان مالون أكسن كل حالي مرنجس كواتي أي جوليستين مدريد هوغان ku hal dhibcood bay ku soo celiyeen Barcelona la'aanta ciyaaryahanno fara badan oo Mareykanka ka maqnaa waxay ahayd xataa markii ugu horeysay Mbappe uu ciyaaray la'aanta midkood Vini Rodrigo iyo Jude Bellingham haddana hawsha saga cabay wuxuuna bugis ku soo qoray ciyaarta markay dhamaad kadib shaqada waanu cabnay waa ninka xalay haddana ku tuurtay oo yiri Madrid Yurub ku tirsan tahay xalay waxay dhaliyeen 2 gool oo fresh ah maxna 2 gool bay ku badiyeen oo midna aanu penalty hayn كاريس باقول لليي وحو موقدي إنه حتى مر إمبابو كده war aduu كاريسو miyaadan garanin waxaan Falansi ahayn macnuu labadii goolba kooxdaas buu ka dhaliyay kulankii 12aad iyo 23aad ee Sisakar waa ninka xidig u fiican ciyaarta loo doortay marka la'aanta ninka raga ka Mbappe xal istaagay waa ninkii ku nool yihiin kooxdan waa ninkii 6 ciyaar soo xigta xataa Madrid imin gool u dhalanayo waliba waxa uu la liiga Sisakar haystaa 22 ciyaarood 23 gool waa unstoppable كابتن وحواني كان لوجو خبان كار سنة كان 23 جول 22 كلن إنك صوت تغييراش فلنسيا يسوي عاي وكما تسدي مركو حل دنبه جول كا ugu شويو تاسواتها waxay ahayd habeen la eegay kabta goollalinta saacad ugu dambeysay warkaan ay baraha bulshada wareegayay ragan sida isugu hayaan goollalinta kabta dahabta Yurub oo dhan tartan culus dhexmarayay Harry Kane oo kala hal laba gool ku darsaday 24 gool Mbappe hal gool buu ku darsaday 23 gool hal gool isna xal ku darsaday 22 gool marka tartan goolintuna waa ka dhinaca kale Arbolo wuxuu noqday macallinkii lixaad ee Los Blancos ka oo badiyay dhamaan afartiisa ciyaar ugu horeeyay liga marka Real xalay waa guuleysteen waa iska nasanayaan toddobaadka kan Barcelona waxay ku mashquuli doontaa koobka Del Rey semifinalkiisa oo Atletico laga soo badiyay xalay Betis bay maalo Del Rey ka soo reebeen iyaguna xalay bay ka aarsadeen marka khamiis baa la ciyaaraya kulankaayo taasna waa taa Liverpool aad buu xanaaqsan yahay ninkii Arne Slot ahaa wuxuu ka careysan yahay why an Carlos Nguehi oo Carlos siiyay Szoboszlai inkastoo Szoboszlai tiis ka cadayd maadaama Janis iska cad oo gool u socda uu ninka jiiday sidoo kale wuxuu leeyahay okay tasday Janis tahay oo sharciga uu yahay way kubadii Nguehi uu jiiday Salah iyadoo xataa waxay buulay runtii inuu ninka Nguehi diiday Janis gool ku socotay fursado waxa jira gool ku socda oo hadii ciyaaryahan khalad lagu galo reed uu yahay marka wuxuu yiri way ninka jaalo loo siiyay marka wuxuu taagay xal wax weeyaan cadaalad ma jirin buu taagay tababaraha ka inkastoo tii Szoboszlai clear oo cad ay iska ahay inkastoo haalan uu naxariisan u leeyahay waxay iska hayd goolka iska deysaan oo ninkan Rosa Simba uu saaxiibkiisa Szoboszlai uu ahaa mugtahay hada ciyaaro badan buu luminaya falqayaal badan waxay yiraahdeen waxay goolka in la deeyo inkastoo sharci uu yahay maxay yahay xamaasadii buu ku dheelay leeyahay VAR ka in balaayada kan socda marka tababaru wuxuu leeyahay way guya rid loo siin hadii sharci uu yahay marka aad buu cambaaray go'aanada Liverpool kulamo badan season kan marka Liverpool Man City garsoor ka caawinaysay ciidan waxay taageen annaga garsoorku waa nagu jiifan bay taageen alcamuum Pep Guardiola oo runtii shirka jira ugu dambeeyay ka hadlay wuxuu yiri ma taqaana daacadu 13 ciyaarood aad u badan tahay idinku aamino yiri war anu horyaalkan khibradan u leeyahay saacad ugu dambeeyay marka ciyaarta dhamaatay aamino yiri khibrada horyaalka u leeyahay 13 kulan aad u badan tahay walaalaya neef baa naga soo go'day macnaha wuxuu leeyahay aad ban ugu dhowna uu leeyahay wali horyaalka waliba hadda isbuucan City Arsenal xaaladii ku suxmeynaysa ciyaar City ka soo horeysa tan Arsenal oo City 4 bay ciyaarayaan Arsenal khamiis bay ciyaarayaan marka City haday soo badiyaan title-ka horyaalka 3 dhibcood u soo jirsanayaan taasna Arsenal buuq bay ku furaysaa inkastoo Brentford ay la ciyaari doonto marka Pep wuxuu yiri fikradayda ku aadan Premier League wali ma dhamaan buuri 13 kulan waxba isku bedeli kara 9 kulan 8 kulan 10 kulan 13 kulan ka hadlaysaa buuri
waxba isbedeli karo mid kale kooxu qaar ba xilligii waxay joogaan buuri ay ka kala carari lahayn Serbida taasna horyaalka saameyn bay ku leedahay uu leeyahay ya marka Pep wuxuu taagan yahay in Arsenal ay pressure saarayaan ilaa iyo dhimashada wuxuu yiri Arsenal haday jiifato oo cad uruntaana wuxuu yiri anigu Arsenal waa daba tagnaan doonaa wuri guusha lorta Man City aad u dhiirigelisay maray u muuqatay Liverpool in ciyaar dili karto oo City ka badin karaan laakiin City ayaaba xilli dambe ciyaartii soo rogtay oo dib u soo celisay maraysay daqiiqadii 83aad City hadda waxa horyaalku way ka sabartay gabadhan kulka shil wuxuu ahaa horyaalku lagu go'aaminayo ahaa laakiin wixii ka dambeeyay marka waa City ay goolo la yimaadeen daqiiqadii 84aad iyo daqiiqadii 9aad taasoo gabiyaanba ciyaartii dhinac u riday oo rajada City nooleysay marka Pep wuxuu yiri 13 gool wax badan baa ku dhici kara wuri macnaha isbedela marka Pep wuxuu aaminsan yahay Arsenal still khalad inay sameyn karto khaladkaasna City reed u ahaan doonaan runtii wuxuu yiri haday jiiftaan hadoon soo qaban doonaa wuri macnaha Liverpool roosaha ka aad buu u dilay saacadii ugu dambeeyay subus la hada ciyaarta soo aadan ma ciyaari doono Liverpool waxay la ciyaari doontaa Sunderland iyadoo ay ka maqan yihiin Joe Gomez Frimpong waliba Jamie Carragher aad buu cambaarayay khaladka noocaas oo kale uu sameeyay Alisson Becker waa wataan la xalay ninka hadduu xataa goolkaas ninka taaban lahayn maba dhalan lahayn goolkaas sida ugu badan maba xog waa nin si bixray banaanka u bixray Benoniga ka macallinkiiba marka wuxuu sanadkan Liverpool khaladaadkeeda ay qaabay Van Dijk oo khalad galay waa aragnay ninka la raado Alisson oo khaladkii shalay weynaa galay waa aragnay sanadkan Liverpool wuxuu leeyahay runtii yaa ilama aanu xataa booskooda Jimlig inay heli karaan cabsi baan ugu qabaa buray ninka kan ee la raado waa ninka la raado Jamie Carragher maxay Liverpool iminku waxay ka joogan booska Jimlig lixaad bay ka joogan 3 dhibcood bay leeyihiin Chelsea 43 Man United 44 midda Aston Villa 47 midda kale waxa weeye adduunyo waxaad joogtaan ama arkaysaan Liverpool oo Man United ayaantan ba ka dambaysa ka war cuquba inaydaas waxa ku dareemaysan Manchester United ku maasan jirteen wiligiin oo dhigi jirteen mar walba waa naga gadaalaysa iyo ayaanta gadaalaysa oo soo qaban la adiinba midda kale Liverpool seasonkan 15 ciyaareen kali horyaalka 12 ciyaar bay badiyeen bal runtii adduunyo bal fiiri 8 gool dara ku dhacday 6na baraaji bay galaan waa Champions-kii dhamaade ee xataa mar seasonkan la siiri waar nimankan looma noolaan karo suuq wax ciyaartoy ka qaateen kadib يا الدنيا أربلون بحدود كوريرينيا العموم سيتي جوش أي كجارين كحدة كبدة عكتها معرضة ليفربول وحا أي بوجو ذا كوسو قرن مركي حلي دم يبضيان خرال أي كليهين وحنون هاي مانشستر سيتي هنغش كينو معناه اللي بيع خويه بيسدها مودينو يكوضع معناه وحنون هاي مانشستر سيتي ماركا كل مانشستر هنغوريا سوق علي جوش الشالي رنتي آدم ستو عاوسي وليبا كل ماذا مركا لفيريا دا عدي أرسنال إيه سيتي ودحيا وإن إنها لغة يعني ما يهو يا أرسنال إستي كل ما أقول يعني أهرسن ولا واحد سلاذ هنيو أما أرسنال كل ما لقب حابات سلاذ هرنتي والفير أرسنال عيارها خصوص الصعودة بريمير ليغا برينفورد بيلا عياريان سكول بس حتى عادي وياي كواس أنا حما أركو توتنهام قول ده إنكستو ريد مهم كم قيان أو عين السجيران كدب جلسي بيلا عياريان وكلن إنا لو قاعد يعداس جلسي بريمير ليج ويل عياريان كي هذانا برايتون باكس أقولي دون تفيري جلسي معناه أرسنال أنيقا ما لا يابا يعيارته أو برينفورد يعيارته وولفز حتى اسكده برينفورد اسكده لكن سيده هرماها واي هي برينفورد حتى كسر وولفز لكن أرسنال ماشي جام وكل يكروح ويان توتنهام جلسي برايتون خطاته وادي اسكجرا إيفرتون دبعلهم يالوا خطاته اسكجرا يا اوكي بانموت فرق waa ay ugu dhoodo City markaas kadib la ciyaari doonta haddana Newcastle bay la ciyaari doonaan haddana Fulham bay la ciyaari doonaan haddana West Ham haddana Burnley caadi waa West Ham hatta caadi waa Fulham laakiin ma shariira iyo Crystal Palace oo dhamaadkiisa ay la ciyaarayaan City marka loo fiiriyo City yaa u muuqata inay xogaa kulmo iska blokeeyay City fiiri Fulham tan iska qataato markay dhaafaan todobaadkan Newcastle waa qataato kale laakiin City still wada fiican ku dhacaysa kadib Leeds Nottingham Forest West Ham Crystal Palace تو مرة إسكال دبتو سيتي يا كده أرسنال بيلعب عياريان ليغا كابكا جلسي لكن لو ودمانيين جلسي لبدا معناها مانشستر ودمان تاي أرسنال لو ودمان تاي يا هوريالكا كده سيتي بانلي يكون عيسى هل إيفرتون خطاتو ويان برينفورد ولا فكرة بانموت أستون فيلا لاكستي كوسو حيردو تاسيسن كو ماركا ولا وراجيرو العموم dad badan ku xisleeyeen kulamada Arsenal u dhiman xitaa markaad fiiriso buuq meesha waa ka iman kara sababtoo Pep Guardiola u leeyahay 13 kan ciyaarood ee dhiman anigu meesha guriga ayga jiru leeyahay macna ma isdhiibay marka waka Bernardo Silva yiri aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay
waxaan joogno leeyahay meesha ugu adag buur Ingiriiska in lagu ciyaaro yaan ku soo badinay Bernardo Silva yani aad ugu faraxsan yahay inay Anfield ku soo badiyeen guushii xilli dambe waa ninkii ciyaarta soo nooleeyay haddii xataa Sitorialkan ay ku guuleystaan lama ilaabi doono goolkii Anfield ku keenay ee kooxda uu dib ugu soo celiyay wuxuu yiri Manchester City hadda way soo laabatay Bernardo Silva ya waynu soo laabanay haddii aan lumin lahayn ciyaartan buri horyaalku uu isugu dhamaan lahayd bur tartankiisii guriga nooga jiro laakiin iminku waynu dagaalinaa ilaa dhamaadka sidoo Guardiola yiri waynu dagaalamayna ilaa dhamaadka waan gaadaynaa Arsenal qalad samayso marka taas waa taa Premier League ugu dhiisu war bay ka soo saareen sababtii roosaha loo siiyay Szoboszlai yani Szoboszlai waxay ku leeyihiin wuxuu diiday fursad goolku ku socotay ya marka taas baa keentay in goolka la kansalo Szoboszlai reed la siiyo Manchester free kick ay qaataan marka waxay leeyihiin Szoboszlai go'aankiisa waa go'aan yani mur baan ka taagnayn bay leeyihiin runtii maadaama Janis weyn gool ku socday Donnarumma safeku uu sameeyay waa tii Guardiola runtii isagu xataa aad u la yaabay Jamie Carragher wuxuu yiri bilowga six man lahayn bur City horyaalka ku guuleysan karta sababta ku aadan intiisan Donnarumma la soo wareegin waxaan isla wareemaya cunugan yar gool kuma qaadi karaan horyaal mugta City sanadkan waa ajarneed inkastoo gool hayaasu wiil khatar badan uu yahay laakiin wali waa mustaqbal fiican laakiin wali horyaal hadii la rabo waa xogaa gool hayo fiican baa qalbiga kugu dagaya City sanadkan cunugaas yar Old Trafford ku fiican yahay laakiin ku sartay rabeen gool hayo kale ma weysan ilaa Donnarumma suuq soo galay marka wuxuu yiri ismaan lahayn bur City ay sanadkan horyaalku yani hatta niisan karta sababta ku aadan gool haye aanu haysan ee weyn Ederson oo baxay iyo cunugaas oo kaliya ay rabeen inay aaminaan walaayada saartaan laakiin markay Donnarumma soo qaateen buri oo jidaan buri City safeka kana ay xalay sameeyeen waxaan qiyaasi doonaa buri in horyaalku qaadi doonaan safekaas uu sameeyay Donnarumma waxa laga yaabaa buri in horyaalka go'aamiyo wuxuu gool haye world class markuu ku jiro goolka ya waa sababta James noqon karto marka aad baa loo amaanay Donnarumma safekiisii waa Pep Guardiola xataa reaction ka nooca ka bixinay al-amuum Pep wuxuu yiri 13 ciyaarood aad u badan tahay Arsenal waa gaadayna wuri slot aad buu careysan yahay roosaha ka ee la sii teamkiisa aan la siin Man City wuxuu yiri sharcigu miyaanu mid ahayn falqayaashu aad bay City waxay u leeyihiin yani City way sameyn karaan still Janis bay u haystaan inay Premier League ku guuleysan karaan si sakano kadib guushii xalay wali waxa laga war dhowrayaa ciyaarta City soo horeysa ee habeen dambe haddii ay badiyaan habeenka arbacada meelaha ya arbacada ciyaarayaan 10 iyo bar kadib habeen ku xiga Arsenal reer Barcelona bay khasi doonaan oo habeenkaas dhalal leeyahay reer Barcelona idinka semifinal lugta kood bad ciyaaraysan habeenkaas Arsenal isla joogtiine guru ugu baxa dhala kale suuraadsada ma Arsenal oo Man City maqashay yaday badiso ya lacala hadii Man City habeenka habeenka soo socday badiyaan oo maqlay waarnimankii baa badiyay ama Arsenal dhala la qaybsan kara lama qaybsan kare hal waqti baad masuuda galaysan habeenka kaasan qiyaasaya waa hal waqti كوي سو ودا غليان habeenkaas dhal raadsada waa inta Bruno Fernandes ayaa si arxan dara ugu jawaabay yani ninkii madaxa daashka lahaa yani ninkii madaxa daashka lahaa xogaa wuxuu yahay inuu ku soo mudmuuday laakiin suurtagal ma kabtanada iyo ciyaaryahanada Manchester inay ku mashquulaan madaxiisa marka Bruno Fernandes jawaabta meeshii laga rabay sac ugu dambe marsiyay wasabtan idin dhahay wiilkan haduu markaan samata bixiyo oo timaha laga jaro macnaha mar dambe inuu Manchester la imaan iyo magaca Manchester la wareegay maalin kastaba aniga Manchester dadteeda madaxa u jari laadahay qajar lahay qajac way kan balow ay kano marka Bruno sac ugu dambe wuxuu muuqday yani wuxuu leeyahay maxay iga galay aniga qof madaxiisa inuu leeyahay sac ugu dambe ya kabtanka waa la weydiiyay waxa hal ciyaar bad u jirtaan inaad ninkaas madax daashka madax ka jirtaan baari Bruno wuxuu ku jawaabay wax shaqo iyo shaqo iga jira ma la waro cid kale madax jarkooda iyo tima jarkooda aniga umbaateyda yani ku filan buur macnaha ay goorta inta soo jaran lahaa iyo meeshan ka buuqmin lahaa ma nin kale itimi jirkiisa waxba igama gelin buu haduu isku waalo Manchester oo uu yiraahdo darteed madax uma jiray hadii kale waa isaga tiisa macnaha ninka yani si adag buu ugu jawaabay journalistaha oo uu ninka waxba ka soo qaadin Manchester isku walwaalaya ee madaxa uma jirin waxba isaga yiri waxba igama gelin kabtanka minad baa sida ka dhahay xilligan saacadii ugu dambeeyay uu mahad celinayay ninka la yiraahdo Michael Carrick uu lahaa mahadsanid Carrick weligay maan arkin buuri tababar afar ciyaarta ii badanay intaan madaxa aan sugay in laga jar uu lahaa markii ugu dambeysay uu madax jarto waxay October 2024 ilaa maanta wuxuu raadinayaa kii ku xigay madax jarka ka Emery marna badin 5 xiriir ah markii ugu badnay 3 xiriir ayuu badiyay runtii marka waa arki doona kole West Ham ninkan waxaan qiyaasi doonaa inkastoo West Ham ayaan xoog aan ku ogeyn aniga laakiin markaad arag fiiriso performance-kii Chelsea ciyaartii ay sameeyeen wax ka soo ka suurtagal banoniga oo comeback markii dambe Chelsea ay sameeyeen meel kaga soo bixi karaan marka waxaan ka baqaa madax daashkan back in gadaal loo celiyo ya
oo haddana cuquba ku dhacday kasoo Manchester wax la qaban kara inuu muuqan laakiin Bruno calaabo waa adiga maalin war dadka horyaalka horyaalka u tartamaya maalin kasta la qabanayo macnaha wax kasta ka suurtagal si kasta mid u fiican tahay Bruniga habeen baa jira meel laga soo baxayo marka madaxdaashka waxaan u maleynaa in lagu ciyaaro dabaaldegiisa marka Bruno wuxuu yiri war kaasmadiisa wax igama galin buuri waa go'aan cad bay ahayd mid kale waa ninka siiskan big sixka aad ugu wacdareynaya ama dhalinay ama ku caawinaya gool Tottenham City Arsenal Chelsea iyo Liverpool Bruno weynka wayaan kaari qodiis wuxuu rataa maalin wuxuu yiri macnaha kuma dabaaldegin inuu afar gool xiriir ah waa istiilan ka fikirnaa uu ciyaarta kale oo qaadanaa ninkan waa ninka Sacuudi maxaa maayna diiray go'aankiina ku soo degina go'aankiina ka soo fiirsada khayri jabaan sidin qaadin horaba soo jirsaan amal macnaha intay uu isku meel gaarnimada wax badan la guuleystay tababar toos ka dhigan kadibna isku waashteen raacday markii dambe wuxuu yiri hays waalina go'aankiina degdeg ku soo gaarina hada tababaraha kooxda ga dhigay macnaha wuxuu siinayaa Janis buu siinayaa degdeg ma gelinayo degdeg ma igu jiru leeyahay runtii go'aankiina soo gaara dhinaca kale Grealish ayaan tan dhaawacan ay Sacuudi taageerayaashu ku maadsadeen waxay leeyihiin ninkan sharciga Ingiriiska uu jibiyay sharciga Ingiriiska wuxuu yahay in maalinta Sabtida galabta saacadu markay tahay 9 PM ciyaaraha soo galaya taageerayaasha garoonka ay aadaan oo aysan gurigooda ka daawan telefishinada marka wax telefishin ciyaaraha xilliga Sabtida lama daawan karo waa 3 PM ciyaaraha soo galaya waxa la rabaa si taageerayaashu aysan guriga u dhex joogin oo lagu khasbay inay garoonka aadaan si kooxuhu yar yar xataa lacag ay u macaashaan heer kala duwan ama heer koowaad ilaa heer kalaba marka Sacuudi bay Grealish oo kooxdiisa ka daawanay markii ay badinayeen toddobaadkan 2 gool iyo gool ayaa natiijadu soo dhigay social media markii ciyaarta dhamaatay waxay u muuqatay inuu telefishin ka daawanay xilligaas ay ahayd xilligii aan la ogolaan Ingiriiska in ciyaaraha telefishin laga daawado marka dad badan waxay yiraahdeen ninkan wuxuu isticmaalayaa stream sharci dara ah iyo isticmaalaya falaashada laga daawado hadda meelo badan oo UK-na sharci dara ka ah oo qofkii lagu qabtaa qaarkood xabsi ku mutaysanayaan qaarkood lacag badan lagu soo la saarayo qaarkood maxkamad loo dirayo yuu ka daawanay bay leeyahay runtii ciyaaraha ka marka waxay leeyihiin wuxuu noqon doonaa Grealish ciyaaryahankii ugu horeeyay ee lagu ganaaxo stream sharci dara inuu ciyaaraha ka daawanay ama live halka qaar ay yiraahdeen oo cumaamadan waxay yiraahdeen waxa laga yaabaa inuu ciyaaryahan weyn maadaama uu yahay fasax loo siiyay linkisyo caalami inuu haysto ciyaaruhu ka daawan karo maadaama xilligaas dadka ay ka miisaamayaan xilligii la diiday in dhalooyinka laga daawado ciyaaraha 3 PM Sabtida UK marka taasu waa taa dhinaca kale waxayaan Usman Dembele biishi xalay 5 gool bay ku badiyeen darbiga La Clasico oo ay ka badiyeen kooxda Marseille Usman wuxuu dhaliyay goolkiisii 50aad iyo 51aad ee kooxda Paris Saint-Germain Juventus xalay 2-2 bay galeen ciyaartooda waxay dhaafi waayeen kooxda Lazio ninka la yiraahdo Enrique waxa uu qanciyay Ancelotti isaga baan kula tali inuu ama aado Madrid isaga tago position laanta ka haysta wargeyska wuxuu sheegayaa in Brazil la ciyaari doonto labada wadan France iyo Croatia Marso ciyaaraha xulka la ciyaari doona waa isdiyaarintii ugu dambeysay xulka isu diyaarinayaan koobka adduunka in ninkan striker toos uu ku soo bilaabo doono Ancelotti uu tijaabin doono war asxaabtay ciyaari waa naga inta nabadgelyo